waxaan ku sugannahay buurta taariikhiga ah ee Karamardha ee ku taalla deegaanka Soomaalida. Run ahaantii buurtani waa buur ka turjumaysa taariikhda Soomaali galbeed. Waana taariikh waxayna leedahay buurtani taariikh qadiimi ah oo waxa weeye waa taariikhdii halganka Soomaali galbeed uu ka bilaabmay. run ahaantii waa goobta aad arkayso waana goob dalxiis ah oo aad iyo aad u qurux badan. laakiin muddooyinkii u dambeeyay waxaa ka bilowday xaalufin aad iyo aad u ballaaran oo ay ku hayaan shakhsiyaad ganacsato ah. sida idin muuqata buurta waxaa ku jira cagafyo waaweyn iyo baabuur ka guraysa dhagaxa. run ahaantiina waad aragtaa muddo yaroo gaaban godka ay ka qodeen. haddii ay sida kusii socotana waxaan rajaynaynaa in muddo yaroo gaaban ay ku dhammaato. sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dhammaan dadweynaha ku dhaqan Soomaali galbeed iyo dhammaan cid kasta oo garanaysa taariikhda buurtan Karamardha waxaa looga baahan yahay in ay ka dhiidhiyaan dhibaatada lagu hayo buurta, taasi oo ay baabuurtani ka gurayso dhagixii oo ay muddo gaaban ku dhammayn karto. teeda labaad waxa weeye sida aad arkaysaan buurtani waa buur daaqsin u ah dadka agagaarka dadka reer miyiga ah xoolo dhaqatada ah ee agagaarka buurtan degan. mana aha buur laga maarmi karo. run ahaantii gaadhiga aad arkaysaan hadda waxaa wadaa dhagaxaantii laga soo guray buurta, waa dhagaxaanta madow ee la shiido. buurtan sidaa la wada ogyahay waagii dhaweyd waxaad ogeydeen inuu ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo uu ku sheegay goob lagaga guuleystay dadka degan Soomaali galbeed, iyadoo ay bulshadeennuna aad iyo aad run ahaantii uga dhiidhiyeen. waxaa la rabaa markaa in dowladda iyo shacabka iyo xukuumadda oo gacanta haysata in buurtan taariikhiga ah cidda xaalufinta ku haysa loo raadiyo goob kale oo dhagaxaanta laga guri karo, maadaama dhagaxaanta laftooda loo baahan yahay. intaa wixii ka dambeeyana buurtan laga dhigo goob dalxiis ah. sidaad ogtihiin waa goob dalxiis qurux badan oo waxa weeye waa buurta aad arkaysaan. sidaa iyo waxa weeye waxaan isku ognahay dadaalka buurta.